aqoon-yahan sheekh guutaale kusoo dhawow buug badan uu leeyahay laakiin mooyaane hadda ka hadlayna umaleyna soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انت اسكدب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيقول يا سيجارة وإني سلام يا وحي غرفة يا رئيس وزراء علي جدي سعيد صراحات بان وفر حسن هارجين سعيد وأمركي يقول رئيس ونرشيد أبكو إن بدن بكل يوم بركة الحمد لله ومعلمكي أبان وفر حسن هاد وعلى هذا كان ضدك هو أمال العلم إلى يوم أمال العلشو بوجان وبوجي يوري لكن مدعسو هذا صوص على جرو اللي يرا ورك كعاي رئيس الوزراء يرك بدن وبروفيسورها حمر جوجا يوسف دوي حمر runtii waxaan leeyahay ra'iisul wasaare siyaasiyiinta Soomaaliyeed waa ka duwan tahay especially kuwa koonfurta dadka ka dhunta marka si raganimo la adigu soo dhaweysay waa ka amalaya Allah ku sharfo adiga wasiir fiqi iyo ragii kale oo khiyaarta ahaa meesha ka hadlay Axmed Nuur asigana aad baan ugu mahad celinayaa maadaama uu fursadaan siiyay nin reer mudugaan ahay waa sheeko badanahay marka waxaan isleeyahay Axmed inuu Xuseen wadaadiga xishoo doonaan u maleynaa 15 daqiiqo ama 10 daqiiqo sii doono inta markaan ugu gudbo waxaan rabaa inaan walaalkay saxo siyaasadda Denmark 2018 aan galay xisbiga Social Democracy golaha deegaanka ka mid ahaa laakiin waan ka baxayo inaysan igu habboonayn aan dareemay oo waxaan isiri Soomaaliyeed ku macno badan tahay markaas waxaan suubiyay xisbi la yiraahdo aniga rag kale hanaan qaran oo wadanka ka diiwaan gashan waan rajaynaynaa in wadanka Soomaaliya uu mar uun la gaaro in shacabka Soomaaliyeed ay fursad helaan oo dadkooda ay rabaan ay doortaan oo la helo siyaasi la xisaabtan inta kadib waxaan gelayaa xoogaa yar oo ka duwan sidii wax loo soo sheegay buug markii la analyze garay tago waxa laga hadlaa ninka qoray iyo maxaan ku yiraahdaa qiimaha uu ku socdo iyo maxaan ku yiraahdaa fariinta uu dirayo intaba marka buugga magaciisa xoogaa dad badan oo Soomaaliyeed baa ku qaldamay magaca Looyaan waa wiil magaciis laakiin Looyaan haddaan Soomaaliyeeyo inkastoo xishoonayo macallimiintii hor fadhiyaan waa lama legde waa ninkii aan laga adkaan karin marka qisahan wuxuu ku saabsan yahay wiil yar oo Denmark ku dhashay oo waalidiintiisu ay qaxooti yihiin sida anagoo kale iskool aadaya wiil fariida maskax furan aad u jecel inuu wax barto marka si lama filaan ah macallimadii wuxuu dhigayso daanishka ahayd mid yar oo ag fadhiyay wuxuu ku tiri war maxaad noqonaysaa markaad weynaato marka wuxuu ku yiri waxaan noqonayaa iska qaalamaan oo macnaheedu yahay dadka jidka xaaqa noqonaya marka wiilkii Soomaaliga ay ku soo durugtay tiri Looyaan adna maxaad noqonaysaa markaas wuxuu ku yiri duuliyaa noqonaya marka waxay ku tiri waad riyootay waxa aabaha yahay noqonaysa marka taasoo macnaheedu yahay adiga aabaha qaxooti waaye ceyr buu qaataa adna ceyr baad qaadan doontaa waa nin Swedish iskala fikirkaas oo la yiraahdo Jonathan Gustav waa fikradaha aan ka soo horjeedo qofka aabihii inuu dhaxlo oo dhaqanka dhaxlo طبعا waa iska suuragal laakiin maadaama anigu aqoon-yahan ahay fikradaha dadkaas ka soo horjeedaan ahay balse inta kuma ekaan sheekada wiilku ma uusan fahmin mid yar oo dhinac fadhiya wuxuu ku yiriyay yaa raacayo diyaaradooda ugu wado ilaa neegar baa tahay halkaas cudurku ka bilowday oo wiilkii wuxuu ku qasbanaaday inuu isdifaaco macallinka u tagay macallimadii buu ku yiri war ninkan neegar buu yiri marka macallimadii meeshii wiilka la safan lahayd bay waxay ku tiriyay isbahayl saajira ama isfahan xumaa jirtee ma aragtay neegar macnihiisu waad madowdahay waay adiguna Looyaano waa madowda halkaas baa laga qaniinay cunugii marka ninkii duuliyaha inuu noqdo rabay oo rajada weyn lahaa baa iskoolkii nacay noloshii nacay caruurtii isku taagay halkaas marka waxa ka dhashay in la yiraahdo macallimiintii ay waalidkii la soo xiriiraan loo qabto qof socialka ka socda la qabto macallin maaragtay nin dhakhtar oo cilmi nafsiga la yiraahdo cunuga kan autism uu qabaa la yiraahdo qaarkood epilepsy uu qabaa suuxdin yar jirto madaxa ka soo maaragtay inuu baxo mararka qaarkood ninkiina iskoolka aad markii la yiraahdo Looyaan uu ooynaya marka Soomaaliya uu isaga riyoonaya inuu aado meesha marka waxa ka dhalanaya conflict aan weligeey aan sheegin laakiin maanta aan ku qasbanahay Soomaalidu maadaama ay aqriskoodu uu yar yahay waalidkii Soomaaliyeed oo dad wanaagsan oo wiilka dhalay waxay ku mashquulayaan arrintan socialka oo soo faragelisay aniga baajkaygu yaa social work marka waxay ku fikirayaan waxay leeyihiin war haddii la soo maaragtay faragelisay
caruurtaa nagala qaadayaa kale Soomaalidu waa iska caruur badan tahay 6-7 aan dhalayna marka way isku dhaxyayaan saan caruurta u badbaadsanaa maxaan qabanaa arrintaas dhalanaysa anigana marka ujeedada aan rabo inaan diro waxay ahayd war wiilkii fariidka ahaa ee ma aragtay ku fekerayay inuu baylood noqdo meesha laga qaniinay inay fahmaan oo dhahaan war xagee laga helay cunuga in la hadlo waa arrinta ma aragtay walaalkay uu ka hadlay in waalidku xiriir la yeeshaan dhibaatadana si wada jira loo xalliyo marka arrintii way badanaysaa waalidiinta dhexdooda haddana problem ka dhalanaya ma iyagoo u cabsanaya caruurtii jabtarka koowaad un baan wax yar ka dhihi doonaa insha Allah marka waalidkii markay cabsidaa bilaabaan waxay aabihiiba wuxuu ku fikirayaa sidoo caruurta kale u badbaadiyo inuu looyaan Soomaaliya geeyo looyaan riyada ugu weyn oo qabo waa inuu mar Soomaaliya tago arrinta markuu waalidka ka xansado si fiican uu sii xumaanayaa marka hooyadii samawada waxay ku leedahay markuu yiraahdo war cunugu waa bay dhibay gal xodayoodan geynaya gal xodayoodan meel gobolada dhax ku taa marka hooyadii baa waxay leedahay waar la geeynayo meesha balaaya degto dadku waa lagu laayo musiibadaas in cunugayga loo dirin ma marka waxaan fikirayaa si aan odayaashu wax u fahmaan aragti gorgor oo daruurta ka koraysa inuusan hooyada la dagaalino oo si xeeladaysan uga dhaadhiciyo fikirkiisa marka wuxuu ku leeyahay naasamawadooy colaadaaba dawo ku jirta markaas waxay leedahay wadaaba dhakhtar u baahan looyaan uma baahna see colaad ma aragtay xal ugu jira marka sheeko qurux badan oo alifay buu sheegay wuxuu leeyahay duqa wowgay ahaayo dhalin Yuusuf la dhihi jiray baa cudurka tuberculosis la yiraahdo ku dhacday isagoo meel buush iska yaalo waa qarni hore cidda weysada walaalihiisna ay dhinac fadhiyaan baa reer ku duulaan ah wareerka col kala dhixiyo ordahayo to duulaan oo warma wata ragii kale way carareen laakiin dhalin Yuusuf maadaama uu tuberculosis qabo iska dhiman lahaa meesha iska yiil meeshii baa looga cararay nin ragii ka mid ah qayrlaawa waa intuu saasu fiirso warkan waa dibadiida dulliga waran uu feeraha ka gashay labada feero dhaxdooda meelaha malaxdi jiiftay tuberculosis cudurku ku dhuftay tii bishadii baa maartay maasheedii wixii soo dhaftay marka meesha markii rag soo noqdeen kuwana waxay rabeen inay qaateen baa waxa loo yimid ninkii war malaxu ka socdo waa la gadiyo maartay xuufkii baa la soo qabto waa la baansho geedkaas oo la kaaday dhalin Yuusuf maalin maalmaha kamid uu duulay dhalin Yuusuf ilaa waa qabyaaladii waxaan wadi jirnay isagoo faras xamala saaran oo duulaan buu wuxuu qabanayaa ninkii waranka ku dhuftay oo cigaal la dhihi jiro markuu qabto suuqa farxaya de waa ninkii badbaadiyay ka soo caltahay moogta laakiin cigaal waa naxayaa maanta waa lagu dilaa usley marka cigaal wuxuu ku leeyahay caarad gabagii uu leeyahay marka odayga sharaxay aabihi wuxuu leeyahay gabagii ma wada xasuustee wuxuu ku yiri caarad waran marba cudur ku dhibay rabbi ku caafshaayo colaaduna kolbay caana tahay oo lagu cootaay nin la ciilay fikirku cushaa caalamkan rogay aadani haduu cadow lahayn cizi ma yeeshay marka iska socdo meesha waxaan rabaa dadkaygu inay fahmaan ilaahay wuxuu leeyahay fa inna ma'a al-usri yusra inna ma'a al-usri yusra halku dhibku ka dhashaa marka inaan fahano wax kasto dhib oo kugu dhaca inaad si aragti sara ugu fikirto oo ka dhaxraadiso tan labaad oo aan leeyahay caalamkan in la ciilay baa maartay aagidiyay Einstein ragil maartay nuclearka keenay oo ciilki baa keenay aqoontu ninka markii la ciilay bad timaada iyo xalku haddana meesha aan leeyahay maxaan ku yiraahday aadana haduu cadow lahayn cizi ma yeeshaan waxaan rabaa in maanta aad u fahantiin oo ah innahu lakum aduwwun mubin shaydaankaba Allah wuxuu u abuuray inaan insaan fiican noqono cadowna ogala dhigo marka nin walba la caduwiyo ama la riixo ogow chance baad haysataa isdiibina dagaal waxaan kaloo rabaa inaan maaragta xoogaa ku baraarugtiin waa sii dhaafimaya okay shan xoogaa yar marka maxaa jannada loo dhibka maxaa faa'iidaha ku jira maxaa qaladka ku jira arrintaasaan isweydiiyey xoogaa filosofan iska dhigay moogta aad baan u fikiray intaana buugga la yidhaha warka kacaya ana qorin oo caligeedow soo bandhig marka waxaa ii soo baxday aadan iyo xaawo haddaan jannada laga soo bixin lahayn oo isan qaldami lahayn dee anagu mabaanan jirneen maba dhalan lahayn meesha isaga jiri lahayn janno maa lagu dhalaa dee meeshaan isaga maaragtay labadooda keliyay ku ahaan lahayd marka inay khaldamaan xikmaa ku jirta marka waxaan ka codsanaa qof walba wax ku jiraan ka soco wax reebo wax qor isku day inaad khaldanto qaladku waa horumar marka walaalkayna waa soo istaagay waxaan rabaa inaan yiraahdo qofka muslimka waxaa laga rabaa ama Soomaaliga maanta inta fadhida inaa geed noqono aan geedka
إلهي سبحانه وتعالى وحواه رمضان كقوسنا ما حضله وانقوينا ما نفسنا يو واشيدينا وقبينا وكم نفعت سنة جيت كاس مو سمير بدن يعني كسياسي سياسة قد مينا لقد جاي على جد وهرفة دي قد مينا عدان كوي كبض جري انتهى كسياسة لقد واسكو قفنا يعني جروب كاس اسكو قفنا dadkina waxa laga dhigay slaveski lagu shaqaysan jiray iska dhimanayaan marka inaan fahanno inaan samir yeelno waxna saxna waa rabaa marka aqoontana waxaan maarta leeyahay waa muhiim wuxuu soo koobaya qaxootinimada dibkeeda dagaalka sukeeyay dibkeeda takoorka hay'adaha shisheeye dibkeena ugu hayaan siyaasad xumada aqoon la'aanta marka hadaa fursad siiso gabay ayaan rabaa inaan akhriyo laakiin hadaa diido waa iska tagaya marka gabaga waxaan leeyahay khaladaadkii Soomaaliya dhacay oo faraha badnaa ku saabsan yahay buugaan kuma jiro buugaan naftiisa gabayo badan baa ku jira waxaan rabaa ciid inaan u mahad celiyo Allah ku sharfo buugaa ciida saxay abwaanka asiga ku daray isweydii Allah wuxuu adiga ku uumay markii soo horlooyana la dhihi jiray marka waa gabay ku jira isweydii Allah wuxuu adiga ku uumay dagaalada ku suusan yahay laakiin midkan waxaan rabaa Soomaalidan ku baraarujinayaa gabagan mar aan siyaasadda macay ugu dhashay oo xanuunsaday oo dhuusama reeb tagay marka inaan weligeed dawlad helin buu sheegaya marka waxaan yiri 60 sano iyo dheeraad dadkan liidnimadu raacday iyagoo ladnaan kara dadkan luqmadda soo tuuga wax loo looyo mooyee dadkan 66 maalin lillaahi dadkan laga celshay laxniga loo meershay lugooyada dadkan lagu wadee lurka la taahaya dadkan luqunta loo sura dhibkee wada la leemaaya dadkan libaax laxamkooda cuni sidii la dhowraaya loo baadiya sideedii dadkan la wada ciiraayo luuqyada dadkan lagu celshay liifka lagu taago dadkan luxudka leesaga ridee laba isweydiin dadkan liicsanaya liidaye laabta ololeyso laab la kaca dadkan laasime xaqi laga leexshay laab la kaca dadkan laasime xaqi laga leexshay dadkan layrkii laga soo dashay liifadina waaye laarigiyada lugoyha dadkan lacagta siinaya laaluushka dadkan lama calayn xalaashina laaday dadkan luqunta laadiye lugaha soo laabtay liciinada dadkan ay lusheen لا نوران واي لعينادو dadkan ay lusheen la nوران waay la jiyada lugooyha dadkan libinka dhowraaya labeentii dawladnimo dadkan laba indhood saareen la yaab male gumeystaa ligdaday oo lurka baday shacab weyniga rabaa inaan dadka ka dhigto xagee loo socdo la yaab male gumeystaa ligdaday oo lurkaan baday loo xadii loo meeriyo nolosha loo laylo oo cilmiga laacan oo libdaan laasas kala nuuca kama labeeyeen inay libinta laacaan ee lixaadkoodu waa fidi lahaa leebisidiis iyo ladnaan waarta waa heli lahaa dadkan looglama iyo loori iyo laadar waxa ka dhigay liidanuhu fuula 60kii loo yaradi ajaray dhaqankii leelnaaya labeentaas waa siciid iyo qoyahan labeentaas labadii ku celin lagama maarmaan waa maxay labadaa lagu celinayo tolkayo Soomaaliya labadaas waa diinta islaamka iyo dhaqanka aqoonyahankaana looga fadhiyaa labeentu waa elite-ka labeentaas labadii ku celin lagama maarmaan ee allow leader lillaahi ya usahal oo luqadanaynin leebkana kasiib oo daway ladiif baa tahay iga raali noqda aad baan